بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. أمد الصومالية ميلة جوكتان بوائد السلامي. إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سنة إنه ميشا جوكتان بإذنكو آمين يلو. qofkii dhibaataysan dhibka alla ka qaado intii bukaanka allaha caafimaad ugu bedelo intii baahan allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala xaquudiyo intii dhimatay allaha u naxariisto waalidiinteenna allaha u naxariisto innagoo dhanna allaha inoo naxariisto oo jannatul firdaws ayna ku jamciyo waddankeennii dhibka gudaha iyo kan dibaddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xifdiyo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka baxayso dhibaatadii muddo loo maleegayay inay ka baxayso insha allahu tacaala saasaan rajaynaynaa. waxaan ku bilaabayaa qodobka ugu horeeya waxaan kaga hadlayaa arrinta khalkhalka nabadgelyada oo soo wajahay Puntland sababna ay u ahayd doorashooyinkii deegaanka. madaxweynuhu ilaa iyo haddeer weli wuxuu ka caraysan yahay doorashooyinkii deegaanada oo ka dhacay 3 magaalo oo uu ku guuldaraystay. dibindaabiyu ku hayaa iyadii waa ka hadli doonaa sharciyadeedii ansixintii ku dhawaaqidii kala fadhigii ugu horreeyay oo la rabay inay dhacdo waxaas oo dhan deadline-nadii oo dhan buu rabaa madaxweynuhu in la jiiro. ciidanka maxaan ku irahdaa guddiga doorashooyinka cadaadis badan buu ku hayaa iyo dhib. madaxweynuhu maalin dhoweyd ciidamuu la hadlay hadalkiisi waxaa ku jiray qofkii lagu qabto khamri iyo alcohol inuu la kulmayo xeerka ciqaabta ugu sarreeya waa ciidamada iyo saraakiisha. wuxuu sheegay inay saraakiisha qaar badan oo kamid ka ganacsadaan khamriga. wuxuu kaloo sheegay inaan loo dul qaadan doonin. hadda waxaa nagu maqaalo ah inuu magacaabay ninkii ugu khamri cabka badnaa dadka nool oo Puntland ku nool. marka madaxweynaha afkiisa iyo dhegtiisu ma ismaqlaa. ina xaaji khayr waa nin marka noqday xilligii Cumar Cabdirashiid ku-xigeenka nisa ee Muqdisho. waa nin xalane iyo meelahaas aad ugu dhow. ninka uu magacaabay ma aha ninkii loo magacaabi lahaa xilka uu u magacaabay arrimo dhowra dartood. qodobka hadda aan sheegay oo madaxweynuhu isagu inuu iska hor yimi oo wixii uu sheegayay wax ka duwan uu isagu la yimi. madaxweynaha marka isaga xeer ma qabto sharcigu jeebka sare ugu jiraa. isagu wuxuu rabaana waa sharci wixii uusan rabinna waa sharci daro. arrintaasina waa musiibo qaran waa kaligitalis. wixii uu rabaa ka shaqayn kara Puntland wixii uusan rabinna ka shaqayn mayaan. khamrada hadduu isagu rabo way fiican tahay khamrada hadduusan isagu rabinna ma fiicno. ciidamadii ilaalinayay seejooyinkii doorashooyinka ayaa waxaa la sheegay inuu isku dayay madaxweynaha iyo tiimkiisu isku dayeen inay boobaan doorashadii inay ku adkaatay. inuu caraysan yahay isleeyahay isbeddel dhammaystiran samee ilaa iyo haddeer inuu diidan yahay inuu kalfadhigii dhaco marka doorashadu dhacdo oo ay dhammaato oo lagu dhawaaqay inay dhammaatay 27 bishii hore oo lagu kala guulaystay. waxaa ahayd inay warqad 8 cisho gudahood in lagu ansixiyo 6 cisho gudahoodna in lagu ururiyo wixii cabashooyina kadibna loo gudbiyo maxkamadda. maxkamadduna ay shaaciso oo ay faafiso 10 beri gudahood. 10 beri gudahood wax cabasho lama soo gudbin. November 6 bay ku ekayd deadline ku ahaa in la gudbiyay ahayd lama gudbin. tibet warqadii bay diyaariyeen. tibet waxay u diyaariyeen inay u diraan maxkamadda. dani baa la hadlay wuxuu yiri joojiye warqadda. maxaa dhacay? gudoomiyaha maxkamadda waqtigiisii waa dhacay. maxkamadda sare anaa magacaabaya. intaan magacaabaya ii kaadiye. imisaad u baahan tahay madaxweyne? 3 cishaan u baahanahay. 3 cisho waa dhaaftay. waxba waa magacaabi waay. ku-xigeenkiisiina waa maqan yahay. nimanka waxay sameeyeen warqadii bay direen 9kii November ayay u direen. 9 November waa markuu qabsaday waxay u direen 30kii yani 3 beri kadib markay dhammaatay oo weliba dhowr beri ay sugeen bay u direen oo ay 21kii bisha November oo dhowr beri ka hor ay doraad
ayay u direen mise shalay ma aqaan bay u direen meesha la yiraahdo maxkamaddii arrintaas waxay ku kicisay khalkhal iyo qalas madaxweynaha markaas wuxuu ku booday ciidankii PIS la oran jiray guddoonkeedii iyo madaxweynaheedii markaas wuxuu yiri waxaan bedelay maxamuud diyaana oo ciidanka haysta ayaan bedelay waxa la ii sheegay ciidamadaasu inay laba sifo leeyihiin oo ka duwan sifaadka ciidamada Puntland ay leeyihiin ciidanka ugu akhlaaqda fiican oo ugu disciplineka wanaagsan oo ugu urursan inay yihiin waxa kale oo la ii sheegay ciidanka hortaagan al-shabaab oo nabadgelyada Puntland gacanta ku hayeen iyaga madaxweynuhu inuu arrinta ku degdego oo xilligan oo doorasho loo socdo uu ku soo beego laba arrimood baa sabab u ah mid waa caradii uu qabay mid labaadna waa doorashadii heer federaal oo uu rabo inuu boobo ama uu khalkhal ka kiciyo boosaaso oo markaa sidaa loogu kala tago oo doorasho ka dhici weydo oo la yiraahdo garow waa lagu qabanaya oo hal meel waa taqaanaan ninka dibindaabiyada iyo laqdabada iyo boobka ku caanbaxay Madoobe ayaa u yimi oo kala taliyay arrimahaas tala uu Madoobe keenayna waa tala ajnabi oo la soo waariday Dubai iyo Kenya iyo meel ka sii shisheeyay wax laga keenay ayaa meesha la keenay oo ah hal degaan doorasho say uga dhacdo ninkan wuxuu qalqaalinaya in Puntland buuq ka dhaco hal degaan doorasho ay ku ururto si uu isaguna markaa ugu doodo inaan gado doorasho lagu qaban ma garanaysaa beledweynena aan lagu qaban oo markaa hal doorasho hal degaan doorasho la isla aado laakiin arrintaas waa too late ujeedada labaad oo madaxweynuhu leeyahay waxa weeye inuu camcamiyo dadka midda koowaad madaxweynuhu isaga xaq u leh inuu ciddi uu doono bedelo xilligeedii maaha ciidankii la rabay in la farafareeyo oo siyaasad iyo la geliyana ma aha ciidanku waa ciidankii Puntland ku hurday isagoo ciidanku ku hurdo way oo meesha ku joogo ciidanka inuu farageliyo qaso ma ahayn waxa la sheegay hadda inay ciidankii diideen warkiisa inay yeelaan oo ay dhaheen anagu ma aqbalayna ninkaan wadatido cabsan oo daroogada iyo balaayada iyo caanka ku ah meesha hartilaa markuu saas maqlay waxa la sheegay inuu yiri xero cusub baan dhisaynaa oo ciidamada u wareejinayna xero cusub inay qoladii saadka haysatay Puntland ciidamadeeda yaa waxa loo sheegay inay diyaariyaan xero aan ahayn xerada hadda ay degan yihiin oo halka la geeyay ciidamadii waxay ka soo baxeen baa leeyahay oo technique badan ilaa 40 ilaa 30 ah wadata oo dhowr boqol 500 nin iyo plus ah baa waxay isugu yimaadeen boosaaso wadada ciidan buu u dhigay uu ugu talagalay inay isku dhacaan markii dambena waxa la sheegayaa inuu isagu yiri sii daayay markii uu ka baqay in meesha dagaal ka dhaco dagaalku wuxuu qarxi karaa any minute inuu marka risk inta la eg uu Puntland geliyo waa arrin la yaab leh waxa kale oo aad la yaab u leh oo reer Puntland ay u baahan yihiin horta dhaqaalii waa baaba arrimahan ka sheekeynayo dhan cid igu khilaafsanay ma jirto dadku beerkay dhulka ku hayaan inay tugsadaan bay dadku qarka u saaran yihiin waxa hadda reer Puntland madaxdeedii oo dhan oo uu madaxweynuhu ugu horeeyay baageedi kulligood baarlama federaalka u socda qof xil raadinaya mid xildhibaan noqonaya mid senator noqonaya kulli waa raran yihiin waxa ay qaadan karaan oo dhaqaalaana waa urursanaya waana raran yihiin oo waxay u socdaan meesha liya federaalka dadkii joogay localku waxay ka yaaban yihiin oo ka baqsan yihiin kuraasta iyada ma naga boobi doona Axmed Madoobe wuxuu kula taliyay inaan hal kursi dhaafin wuxuu la hadlay baarlamaanka Puntland wuxuuna ku yiri ninka amba bixiya oo soo gudbiya oo soo dira oo isagoo hay isa soo dhaafiya idinka idin soo dhaaf annaguna marka annaga ugu darayna inta hartay marka wuxuu rabaa inuu boobo oo ma garanaysaa uu abaar baa jirta baahsan dhaqaale xumo baahsan baa jirta waxaa jira ma garanaysaa yani boobkaas oo dadkii ay baqsan yihiin in badan oo kamid a waxaasoo dhan baa jira waxaan dhihi lahaa kow madaxweynuhu xaq buu leeyahay ciddii uu bedelay uu bedelo laakiin waa wrong time number 1 number 2 waa politicized ujeedu kale dadka isku layn baan dhihi lahaa siciidow dadka isku layn ninka taliyaha ah waxaan isagana leeyahay
hadday arrintu adkaato oo ilaa ay noqoto in arrinta ma garanaysaa ay gaarto inay dagaal noqoto fadlan dalka dagaal ha gelin maxamuud baan la hadlaya maxamuud diyaana dalka dagaal yuu gelin ku wareeji haddii ay noqoto in ay dagaal noqoto laakiin isagu waa inuu xilkasnimada qaataa isagaa dalka madax ka isagaa loo doortay dalka inuu nabadiisa ilaaliyo waa inuu iska ilaaliyaa inuu ciilqab iyo rajo uu ka qabo xamar malxiis buu ka noqonaya malxiiska siyaasadeed ee farmaajo noqonaya malxiiska tartanka farmaajo ayuu noqonaya waa la hubaa marka wax aanu qiyaasayno inuusan arki doonin yuusan dalka u burburin siciidani oo dalka khalkhal u gelin isaga iyo kooxda ku hareeraysan oo ma garanaysaa aan kelmad ku celin karin kelmad kuma celin karaan waa guulwadayaal kulli waa heesaya yacni jeebkaa koruu ugu jiraa dowladnimadu isagaa dowladda arrintaas waa taas isagana saasaan kula talinayaa ninka la yiraahdo waxaan u gudbayaa oo aan ku khatimayaa odayaasha isimada ah marar badan waana idin sheegaa idinkamana samro laakiin hadda waxaan la hadlayaa si toosana ugu bareerayaa boqor burhaan waxaan kula talinayaa inuu qaato leadership hoggaanka inuu qaato maadaama isagu hoggaankii ugu sarreeyay isimada yahay oo isinkii isimada uu yahay inuu hoggaanka qaato inuu ku dhawaaqo isagu u hormaro oo ku dhawaaqo xubnaha iyo dadka laga dooranayo Puntland oo anagu aanu dooranayno ergooyinka waxa u madax bannaan odayaasha iyo beelaha iyo cuqaash iyaga iskale iyaga soo dooranaya ergadooda iyaga xildhibaankooda dooranaya iyaga la soo baxaya cidda ku matalaysa aqalka baarlamaanka dowladda dhexe dowladda Puntland bannaanka ka istaagto maamulkaasi yuusan faraha nala soo gelin boqorku inuu isagu bilaabaa laga rabaa isagaa dadku u jeedaan hadduu boqor burhaan bilaabo waana ogahay nin kara oo raganimadeeda iyo kartideeda leh aragtideedana leh geesinimadeedana leh ilaahay subxaana wa tacaala xifdiye inuu yahay oo karo inuu dhahaan kula talinaya inta kalena marka uu isagu hadlo bay ka daba hadlayaan oo raacayaan waxaa imaanaysa markaa doorashadii inay Puntland uga dhacdo si ay rabaan beelaha dadka degan meesha oo cid ay dirsanayaan ay noqoto cid aan siciid u rarnayne iyaga u raran oo iyagu ay dirsadeen oo danahooda la taga baarlamaanka ummadda ka dhaxeeya oo howlahooda gudbiya intaasaan iyagana boqorkan kula dardaarmaya boqorrada kale iyo isimada kalena waxaan leeyahay marka uu boqorku arrintaa ka hadlo idinkuna inta hartay israaciya oo ka hadla oo idinkuna waxaa la soo baxdaan ma garanaysaa fikirka uu boqorku la yimi idinkuna taageero waxaad tirahdaan annagaa iskale xildhibaanadayada annagaa dooranayna ciddana matalaysa annagaa la soo baxayna cidda aanu rabno cidna marti ugama ahin kana yeeli mayna in la maamusho intaa idinkuna dhaha isimada intooda kale iyagana intaasan kula talinaya laakiin mar kale waa soo koobaya Puntland khalkhalka laga daayo waa gobolka kaliya oo nabadda ah yaan la kicin dalka oo dadka yaan la qixin dadkii oo abaaraysan oo fakhri hayo oo walwal iyo walbahaar siyaasadeed oo maskaxda kaga jiro yaan colaad iyo rasaas loogu darin xilkasnimaa loo baahan yahay mararka qaarkood waa la diidaa amarada khariban hana la ka daayo midda kale madaxweynuhu alcohol ayaan la cabin iyo alcoholistan keenaya isku heli maayo isagu meelaha dhinaca isugu lugo duwado hadduu nin fiican keeno muxuu kaa dhimi lahaa yacni ninka ugu khamri cabka badan weeyaa la yiri reer Puntland anigu isagoo cabaya ma arag weligay mana aqaani laakiin warka la iisoo sheegay oo dad odayaal oo cuqaal oo madaxa iisoo sheegeen waa warkaas loomana baahno waxaa loo baahan yahay dalkan dalba oo yaa ku leh ma ahaanayso Puntland raggeedii baa u imaanaya oo insha Allah la wareegay inta taasan ka oranaya qodobka labaad waxaan ka hadlayaa doorashooyinka ka dhacay so far dowladda federaalka ah meelihii ay ka mid ahaayeen waqooyiga iyo galmudug waxaa ka soo baxay waqooyiga 6 xildhibaan sidaanu xogta ku hayno oo aanu sheeko hoose ku helayno 6daasuba waxay ka sii xanaajinayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Shariif iyo qolyihii ma garanaysaa
midowga musuq maasuqa iyo midowga midowga qaran dumiska iyo midowga geel qalashada nimankii odayaasha oo geela qalan jiray afkii baa juuqda gaday waxay geel u qasheen oo dagaal u galeen oo rafaad u mareen oo dowladnimadii u hirgeli weyday oo doorashadii Soomaaliya ka dhici lahayd oo qof iyo cod ah u diideen inay iyagu xoog ay doorashada ku yimaadaan laakiin maxaa ka raacay doorasho dadban baan rabnaa kelmaddii qoorqoor baan idinku celinayaa mar kalaan idin maqashiinaya adeer bahashu waa dadban tahay idinkaa dadbay macnaheedu maxay tahay wadda toosoo istareeda ku socon mayso luuqluuqiyay ku baxaysaa adeer bahashu waa dadban tahay marka sidii capsulkii intaa qaadatid doorashadu waa dadban tahay liq oo biyo badan iskaga deji saas maskaxdaada geli kolley anugu cabdiraxmaan shakuur awalba ka sugumayn inuu isaguna sugumayn inuu kursi helo iyo inuu guulaysto iyo inuu wax ku soo baxo midna laakiin isagu waa ku qabso ku qadimayside ilaa yaantii la abuuray ilaa hadda waa qaylinay weligiisna isagoo qaylinay buu dhiman doonaa qaylo isagoo qaylinaya buu dhimanayaa ciidina wax u dhiiban mayso xil u dirsan mayso meel uu madax ka noqonayaana ma jirto isagu inuu buuqo qoob iyo qaylo baa isaga sheekadiisu tahay marka adeer way dadban tahay bahashu mana idinka farxinayso idinkaa diiday doorasho qof iyo coda oo shacabka wax la weydiisto cod haddeeray waxay ka doodayaan qolyihii laga joogi waayey oo gaalada la hadlayay ma dhici karto impossible waxay hadda ku doodayaan doorasho qof iyo codah baa la qaatay hadda waa too late markaan idin dhaaftaye saan ayaantii hore idiin sheegay bahashu waa dadban tahay tribka dambe kaga faa'iidaysa so far waxay ku socdaan dhibcuhu si aan caadi ahayn ninkan waa cawad wuxuu ka soo baxay galmudug isaga iyo ugaas dhegey ayaa iyaguna ka soo baxay galmudug labada nin oo ka soo baxay nin waa nabad iyo nolol ninkan waa farmaajaysan yahay ninka la yiraahdo ugaas dhegeyna waa 40-60 baa la yiri farmaajo iyo cabdikariin guuleed buu dhexeeya cabdikariin guuleedna awal buu taageersanaa laakiin hadda inuu waxba uusan haysan oo meelna u socon waa loo jeedaa marka cod lagu khasaarin maye waxay ila tahay isaguna waa dhankaas marka 8 out of 8 sideed baa soo baxay sideediiba xaggaasay mareen allow wuxuu yiri nin baa waxaa laga sheegay allow haddii inta layla tashado aan tala fiican keeno oo taladayda la qaadan waayo jecliya in bowda laga jabo so ma arkaysaa ilaahu jecliya in bowda laga jabo markii warkayga la diido oo ma garanaysaa hadalkayga la qaadan waayo baa nin laga sheegay ma garanaysaa nin baa laga sheegay warkaa haddii warkayga la qaadan waayey oo aad diideen doorashadii fiicnayd oo dalka iyo Soomaaliya aan ku dooran lahayn dad aan rabno oo shacabku wax dooran lahaa oo qofkay jecel yihiin dooran lahaa maxaa ku diideen haddii la yiri doorasho qof iyo coda waxay yiraahdeen farmaajo soo baxay doorashada dad ma rabtaan waxaa rabtaan keensadu yiri idinku waxaa rabtaan keensada iyagaa qortay waxa maalin walba habraac cusub bay ka bedeleen hadda cid ay eedeeyaan ma yaqaanaan farmaajo is out of the picture gadaashaas dambu jira ma joogo doorashadii gacmaha waxay u gashay maamul goboleedyadii waxa ay soo saaraan badankoodii waxay rabaan xamar inay aadaan oo dowladda farmaajo doortaan maxaa tala amarka soo adigu ma keenin jinni ninkii keenaa bixiye adeer bahashu waa dadban tahay intaa ku sabro iska aamuso 2025 miya mise 2026 whatever it is xilliga soo socda 2026 doorashada dhacaysa u diyaar garooba insha Allah taala intaasna waxaan ka oranayaa arrintii doorashada waxaan rabaa inaan dadweynaha na dhageysto u sheego usbuuca soo socda axaddan soo socota insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan wareysano oo aanu halkan soo fariisino madasha madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Cagjar insha Allah taala oo uu nasiyo xogo iyo warbixino ku saabsan dalka Itoobiya meesha wax maraya wararkii ugu dambeeyay ilaa 12 qof oo madaxda ugu sareysa TPLF ayay dowladda Abiy Ahmed ay dishay meelo badan baa laga saaray dhulkii canfarta bilkulliyan waa laga saaray dhulkii canfarta waa laga soo sifeeyey
meelihii kalena tartiib tartiib baa loogu socdaa intaasna waa xogta ugu dambeysay oo Ethiopia hal kelmad baan idinka oranaya madaxweyne Cagjar waa aqoon-yahan waana nin Soomaali ah oo Soomaalinimadu ku weyn tahay labadaas la isku heli karo nin garasho leh oo cilmi iyo aqoon leh isla markaasna Soomaalinimo ay ku weyn tahay oo qabyaalad iyo meelo hoose iyo aan ka ciyaarin tuugna aan ahayn oo aan soo shaqo tagin ninka noocaas oo kala ah lama helo waa la taageeraa hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacanta idin soo galiyo waa la taageeraa oo waa la ilaashadaa Axmed Madoobe dad taageersan yihiin markaas ay Mustafa caayaya Axmed Madoobe waa unschooled way waa ibliis qof laga dhigay way cadow xaasida oo dadka baabasha oo booba oo aan haba yaraatee wax dhaafsiisan isaga jeebkiisa iyo kursigiisa aan ahayn wax dhaafsiisan aan aqoon shughulna ku lahayn danna kala hay dadka baabaayo abaaraha u baabaaya danka malaha garow chicken ku cunay markaysa wixii yaalayna isaga urursaday $1 siin maayo ka nixin maayo danna kama leh magaranaysa marka waxaan idin leeyahay madaxweynaha taageera waxaan kaloo idin leeyahay Ethiopia TPLF hadday soo noqoto Soomaalida baaldegaysaan arkayay kuwa meelaha ordaya waxbaan saxiixaynaa leh oo magaranaysa waxay ku maqan yihiin aan la arag iyaga laftigoodii baan waxba la joogin oo isla joogin oo reerahoodii iyo caruurahoodii iyo xaasaskoodii faamiliyadoodii kuwa ay dayacmeen oo ka warhayn kuwa aanu ognahay naqaan oo aanu ka warhayno xogtooda oo baaba waxay ku leeyihiin waxaanu dhisaynaa dawladda adigu dhisaysaan yey dawladdu noqonaysa TPLF Maraykanku intuu bushkarayn karay waa bushkareeyay mana u shaqaynayso ruushku waa diiday inuu ciidamadiisii dawladdiisii ka saaro iyo safaaradihiisii iyo ka saaro wuxuuna yiri waa amni dad cadaana saa u yaacayo oo galaya oo raba inay muujiyaan ninka la yiraahdo Blinken iyo Maraykanka madaxweynihiisa Biden inay been sheegayaan oo ka soo warramaya Addis dhexdooda amni way waxna loo sheegay been way hal yimaado leh dalku waa lagu dalxiisi karaa waxaan marka Soomaalida u sheegayaa Soomaaliyay Abiy Ahmed amxara wadata erada yani waa subjective baa waa qiimayn shakhsiya garaadkaaga iyo aragtidaada ku xiran laakiin Abiy Ahmed waa nin wax raba waa nin mustaqbal dheer raba inuu meesha xukumo aragti amxaru wata yaa ku sheegay aragtida madaxiisa waxa ku jira yaa kaaga waramay يعني adiga waa qiyaasi kartaa waa odorosi kartaa laakiin isna necessarily sax inay tahay qasab ma waxa sheegaysa inay sax tahay Abiy Ahmed wuxuu rabaa madaxtinimo 4 sano uu joogay baan ka nasanay annagu hadaan Soomaalina wixii ka horeeyay Ethiopia cadow bay ahayd laf dhuun gashay bay Soomaali ku ahayd Soomaaliya waxay dhaqaaqday intii Abiy Ahmed joogay waa inaan ka shaqeynaa inuu sii joogo oo isagu madax ka ahaado hadii uusan ahaanayn inaysan wax Ethiopia la yiraahdaa jirin oo gobolka Soomaaliyeed uu go'o oo ka haro madax banaanado oo isagu markaas ama Soomaaliya soo raacana ilaa uu istaago waa arrin dambe laga hadli doono laakiin inaan annaga TPLF iyo amxaro iyo cid kale toona noo tarin dawladda federaalka oo meesha ka jirta haday jirayso ninkaas waa aragnay waa nin laga ammaan helayo mid aanan garanayn hawsa abatuminina yaa loo durbaantumin waxaan la garanayo soo bixi doono intaasaan idana oranaya khayr badan baa idin rajaynayaa TPLF waa terrorist waana u dhamaatay insha Allah ta'ala markaana ugu dambaysa mar dambe warkooda la maqli maayo aad badan idin salaamaya dalkii ha loo duceeyo dadka abaaraha iyo dhibaatadu haysatana ha loo gurmado qof walba wixii awoodid bixi insha Allah khayr badan baa idin rajaynaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh